kulanto waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada ugu door koran galka wararka aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah qaraxyada xigo oo qasaare geystay oo maanta Muqdisho ka dhacay madaxweyne xaaf oo ka hadlay dadkii lagu laayay magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed oo si kulul uga hadlay dadkii lagu laayay Gaalkacyo iyo fariin adag u diray maamulka Galmudug dowladda Soomaaliya oo ka hadashay dadkii lagu laayay magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug muxuu ka yiri Xasan Sheekh dadkii Gaalkacyo lagu dilay qodobadaasi qodobo kale ayaad ku daawan doontaan daawadayaal galka wararka haddii aad ku cusubtahay waxaad saartaa subscribe si aad u heshid warar xaqiiqo iyo xogtii ugu dambeysay Soomaaliya qaraxyo mataana ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho waxaana qaraxyadan ay kala dambeeyeen daqiiqada kooban qaraxa koobaad ayaa ka dhacay isgoyska Sayid goob ay ku sugan yihiin ciidamada ilaalada madaxtooyada Soomaaliya isla markaana laga ilaaliyo golaha shacabka waxaana qaraxaasi loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qaraxa goobta qaraxa ka dhacay ayaa meel inta badan ay isticmaalaan mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya waxaana sidoo kale halkaasi ku yaala wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga iyo xarunta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal waxa qaraxaasi ka dhashay qasaaro iskugu jira dhimasho iyo dhaawac goobtan ayaa dhowr jeer la qarxiyay waxaana sidoo kale al-shabaab ay ku qaadeen weerar toos ah qaraxa labaad ayaa ka dhacay agaarka kilometer 4 waxaana loo adeegsaday gaari noociisa Toyota Noah oo qalin ah ciidamada amniga ayaa ku guuleystay inay gacanta ku soo dhigaan wadihii gaarigaas wax qasaarana ama uusan geysan qaraxaasi sida ay sheegtay taliye ku-xigeenka booliiska Soomaaliya magaalada Muqdisho ayaa amaankeeda maalmihii u dambeeyay u muuqday mid faraha ka sii baxay iyadoona ciidamada booliiska Soomaaliya ay howlgallo joogto ay ka sameeyaan xaafadaha kala duwan ee magaalada Muqdisho Axmed Ducaale Geelle Xaaf madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa ka hadlay dilkii loogu geystay magaalada Gaalkacyo 13 ruux oo ka soo jeeday deegaanada maamulka Hirshabeelle Koonfur Galbeed ee Soomaaliya madaxweynaha ayaa sheegay in gacanta lagu dhigay dadkii lagu tumay dilka dadkaasi oo ay ka dambeeyeen dadka ka dambeeyay dilka waxay ahaayeen dad weeraxsan kadib markii maqranimadii xalay la dilay sargaal ayuu sheegay Xaaf laanta afka Soomaaliga ee BBC-da madaxweynaha ayaa ugu baaqay dadka shacabka ee Koonfur Galbeed in ay istajiyaan isla markaana dadkaasi dhamaantood loo horgeyn doono sharciga la marsiin doono ilaa iyo 13 ruux ka soo kala jeeda deegaanada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ayaa lagu dilay xalay magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug iyadoona dadkaasi la sheegay inay ahaayeen xoogsato ah oo laga soo saaray guryahooda ay ka degnaayeen magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug dhacdada ka dhacday magaalada Gaalkacyo ayaa si weyn looga hadlayaa Soomaaliya iyadoona dhacdadaasi ahayd mid aad loogu murugoodo mas'uuliyiinta magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug ayaa ka hadlay dhacdadaasi waxayna bulshada reer Gaalkacyo ugu baaqeen inay ka qayb qaataan sidii loo soo qaban lahaa dadkii ka dambeeyay dilka loo geystay 13 ruux ee ka soo jeeda deegaanada maamulka Hirshabeelle ee Koonfur Galbeed ee Soomaaliya madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagar ayaa sheegay in maamulka Koonfur Galbeed ay magacaabeen guddi xaqiiqin raadin ah oo loogu talagalay inay tagaan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug guddigan ayuu sheegay inay ka shaqeyn doonaan sidii loo baari lahaa dadkii shacabka ahaa ee xalay lagu xasuuqay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug madaxweynaha waxa uu sheegay in maamulada Koonfur Galbeed iyo Galmudug ay si wadajir ah ugu shaqeyn doonaan in la dhameeyo wixii ka dhacay magaalada Gaalkacyo isla markaana la soo qabto dambiilayaashii ka dambeeyay dilka ee ka soo kala jeeda deegaanada maamulka Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ugu dambeyntii waxa uu madaxda Galmudug ugu baaqay inay maxkamad soo taagaan kuwii dhibaateeyay shacabka masaakiinta ah ee ka soo jeeda deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Senator Cabdi Qeydid ayaa ka hadlay dadkii lagu laayay magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug waxa uu sheegay in dadkaasi ay ahaayeen dad arxawlayaal ah isla markaana shareecada la horkeen doono wuxuu maamulka Galmudug ugu baaqay in si degdeg ah loo soo qabto dadkaasi isla markaana la horkeeno shareecada Islaamka si loo waafajiyo dambigii ay galeen Senator Cabdi Qeydid waxa kale uu sheegay in loo baahan yahay in laga qayb qaato sidii loo soo qaban lahaa dadka dambiilayaasha ah ee dhibkaasi geystay wuxuu baaq u diray maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya shacabka maamulka Koonfur Galbeed wuxuu ugu baaqay senatarka in ay isdajiyaan isla markaana ay ku dadaalayaan sidii loo soo qaban lahaa dambiilayaashaasi dilka geystay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed iyo mas'uuliyiinta kale ayuu ka dalbaday in ay isdajiyaan isla markaana ay xaqiiqo raadiyaan
senator cabdi qeydid waxa kale uu sheegay in loo baahan yahay in dadkaasi gacan bira lagu soo qabto isla markaana sharciga la waafajiyo. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa cambaaraysay dadkii shacabka ahaa ee lagu laayay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareey ayaa sheegay in falkaasi uu yahay mid naxdin badan isla markaana ay baari doonaan sida ay wax u dhaceen. waxa uu sheegay in gacanta lagu soo dhigi doono ciddii ka dambeysay falkaasi isla markaana maamulka Galmudug ugu baaqay in ay gacanta ku soo dhigaan dambiilayaashaasi. Saraakiisha ciidanka Galmudug ee magaalada Gaalkacyo ayaa warbaahinta u sheegay in dilka dadkaasi uu yimid kadib markii koox hubeysan ay magaalada Gaalkacyo ku dileen sargaal ka tirsanaa ciidanka nabad sugidda ee Galmudug isla markaana dadka deegaanka ay ka caroodeen laba ka mid ah kooxihii dilka geysatay. kadibna guri ay galeen laga soo saaray 10 ruux ayna dileen 9 ka mid ah koox deegaanka ah oo ka careysan dilka sargaalka nabad sugidda ka tirsanaa. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si weyn u cambaareeyay dadkii shacabka ahaa oo xalay lagu laayay magaalada Gaalkacyo qaybta Galmudug kadib markii koox deegaanka ay ku eedeeyeen in ay dileen sargaal ka tirsan ciidanka Galmudug. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu baaqay laamaha amniga Galmudug inay si degdeg ah baaritaano ugu sameeyaan dadkaasi isla markaana cadaalad la horkeeno ciddii ka dambeysay dilka. waa wax laga xumaado in dad gaaraya 10 qofood lagu dilay magaalada Gaalkacyo hal habeen. waxaan cambaaraynaynaa falkaasi foosho xun iyo dadkii ka dambeeyayba. waxaan u tacsiyeenaynaa eheladii ay ka geeriyoodeen dadkaasi. waxaan ku adkaynaynaa maamulka Galmudug iyo waxgaradka reer Galmudug guud ahaan iyo gaar ahaanba kuwa reer Gaalkacyo in ay ka wada shaqeeyaan sidii gacan loogu soo dhigi lahaa loona horkeeni lahaa sharciga si cadaaladu ay u shaqeyso ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud. guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynaa daawadayaal warkii aad ka daawanayseen galka wararka. inta warkaan oo kale ku kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo.